annagu xildhibaan ma lihin ma ahan calanuug xildhibaan garjirta no gobolka banaadir adiga xildhibaan waa intaad u doodo oo u qayliso wax walba dad laga rabaa 5700 aan fiirsanaa hadaa tira meelan fadhinaa tira afici mayso walaalkay taasan ku leeyahay xamarna annaka leh cid aan ka baryayna ma jirto in laga baryayo ma jirto waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan xisbiga xaq u dirir afarta saransoor iyo adeerkood waxaan rajaynaynaa inaad u xuubsiibataan xisbiga xaq u dirir ee ummadda Soomaaliyeed annaga ka maqaam ahaan iyo ka beel ahaan waxaan ku jirnaa dadka ugu liito ee gobolkan Banaadir dhalinyarada beesha garjanta ee Gardheere Soomaaliya ayaa maanta daafuray xisbiga xaq u dirirka beeshaasi kula weynaha lagu daafuraya xisbiga ayaa waxaa ka soo qayb galay ugaaska guud ee beesha ugaas Cabdullaahi ugaas Barow ugaas Cali waxgaradka nabadoonnada dhalinyarada haweenka aqoon-yahanada beeshaasi iyo sidoo kale marti sharaf kale ugu horeen qaar ka mid ah dhalinyaradii goobtaasi ku sugnayd iyo nabadoonnadii ayaa kelmadooda qaatay iyagoo ka hadlay baahiyaha sababay in la aasaaso xisbiga xaq u dirirka beesha garjanta Gardheere Soomaaliya taasoo maanta bay shaaciyeen halkan iskugu timid iyo walaalaha kuwa maqan intaba waxaan maartay ka midaysanahay midnimada iyo walaalnimada ee beesha iyo maartay jirintaakeeda insha Allah biidnillaahi kariim waxaan noo labeeyaa beeshan wax badan oo maartay kadib dhacay ama ka maqan ama gobolka Banaadir ha noqdo ama gobolada kale ha noqdaana intaba wixii ka maqan wixii hadda laga bilaabo in ay u taagan tahay insha Allah biidnillaahi kariim xuquuqeedii iyo xaqeedii meel alla meesha ku maqan yahay in ay ka soo saari doonto insha Allah biidnillaahi kariim waxaana dad geesiyaal aan ahayn oo maxaa yeelay waxa aan sheegay ma wax hore baxay waaye marka insha Allah biidnillaahi tacaala waa soo gaabinaa xalfadan dadkii dhigi insha Allah biidnillaahi tacaala ula jeeday u dhigteen waa dhalinyaro dhigtay anagana waa nagu soo xasuumeen anagana waa insha Allah biidnillaahi tacaala waa soo xaadirnay wixii ula jeedo oo siyaasadda ka hadlaa anaga odayaal hadaan nahay waxaan dardaarana bixinayna in gacmaha la isqabsada la walaalooba waxay la raasanayeen adoo alla cabsi ku jiro lagu raasada ku midaysan xisbiga xaq u dirir beesha garjanta Gardheere Soomaaliya inay jiraan dad xisbiga kamid ah haddana wixii xoga ama ballanaho hoos la isugu sheego u gudbiya dad kale oo aan ka tirsanayn xisbiga waa ballanka bax runtii waana xaaraan qofkaas horta waxaan ka rabnaa haddii uu jiro kulli isaga isiqaani inuu haddana is xakameey karin walba xisbiga iskaga baxo waxa kale oo rabnaa haddii Ilaahay idmo maanta waxaad ku kooban tihiin xisbiga xaq u dirir beesha garjanta Gardheere Soomaaliya waxaan rajaynaynaa inaad noqotaan xisbiga xaq u dirir afarta saransoor iyo adeerkood waxaan rajaynaynaa inaad u xuubsiibataan xisbiga xaq u dirir ee ummadda Soomaaliyeed ninkii maanta dhaha garjanta wax ma leh aniga kulli waxaan saransoor markii la garjanta aad ay igu soo sokeysa dadka garjanta naaskooda nuugi waa la dhashay waana dhaleen waan la dhalanay ninkii maanta dhahay garjanta wax ma leh gobolka Banaadir wax kuma leh quraankan yaasiin kuma jiro nin dhahay la mid tahay xildhibaanka meesha ka soo gala federaalka u joogo Sulnuug waxaan dhihi lahay tolkaada waa soo binaan bixin maanta u jeedaa in ka badana waa sii sugaysaa insha Allah waxaan jeclaan lahay tolkan gobolka Banaadir adiga xildhibaan waa intaad u doodo oo u qayliso wax walba dad laga rabaa 5700 aan fiirsanaa hadaa tira meelan fadhinaa tira afici mayso walaalkay taasan ku leeyahay marka waxaan dhihi lahay garjinta maanta ugu horeysa waa dad xishood badan waa dad iimaan badan waa dad aan mashaakil aan ogoleyn laakiin maanta wixii soo binaan bixi waa daruuf meesha taala koonfur galbeed waa inay ka soo galaan Hirshabeelle waa inay ka soo galaan waa inay Jubbaland ay ka soo galaan waxaan xasuustaa aniga daa'igu ma yara diinsoor idoo la wada lugayna nimankii taata u keeno baawur la raac jir garjinta ay ogaay waa inay diinsoor ka soo galaan oo meel walba ka soo galaan marka walaalahay waxaan dhihi lahay dhereeg wixii karkar ka keena dafkuwal marka wixii maanta gabdhahayna soo wanaa bixi oo banaanka wiilashaana soo banaa bixi oo ogaaska soo banaa bixi waxay ila tahay wax meesha ku yaala dhinaca kale gudoomiyaha xisbiga xaq u dirirka ee qaybta gobolka Banaadir ee beesha garjanta Gardheere Soomaaliya ayaa ka hadlay muhiimadda loo aasaasay iyo caqabadaha ku geedaaman beesha iyo tabashada lidata midda federaalka iyo tan isteedada ay ka soo jeedaan sida uu sheegay
waxaan rabaa inaan wax ka taabto hadafka mise sababta keentay inaan aasaasno xisbiga aan la magac baxay xisbiga xaq u dirir anoo ku hadlayo afka gadoomiyaha xisbiga dhalinta ee gobolka Banaadir xisbigan dhabtii qodobada uu diiradda saari doono waxaa ka mid ah qodobka koowaad hiigsiga xisbiga xaq u dirir waxa uu taagan yahay sida aan annaga beel ahaan mise beesha garjanta gardheer Soomaale saan u heli lahayn cadaalad sinaan beesha waxaynu wada ognahay in ay beeshu la tacaaliso cadaalad daro sidaan ka warqabno ka dhalin ahaan qaasatan waxaa la hadlaa dhalinta beesha garjanta gardheer Soomaale ee maanta horteeda fadhiso ama ay fadhiyaan waxaan leeyahay saa wada ogtihiin annaga ka maqaam ahaan iyo ka beel ahaan waxaan ku jirnaa dadka ugu liito ee gobolkan Banaadir dhinaca kale afayeenka xisbiga xaq u dirarka beesha garjanta gardheer Soomaale Cabiira Maxamed Cali ayaa kadib markii la shaaciyay xisbigan waxay akhrisay warmurtiyeed ku geedaaman caqabadaha iyo ujeedada loo aasaasay xisbigani war-saxaafadeedka ka soo baxay xisbiga xaq u dirir ee beesha garjanta gardheer Soomaale waxa halkan ku qoran dhowr qodob qodobka koowaad waxa xaqiijinta iyo sinaanta beesha garjanta gardheer Soomaale waxa ku baaqaynaa in la dhiso xisbiga xaq u dirir u taagan sida loo heli lahaa cadaalad iyo sinaan taasoo ay ka mid tahay midnimada beesha muhiimadda beesha iyo wadajirka beesha waxay ku mideysan tahay xisbigan oo ay taageero buuxda u muujinaysaa matalaada beesha garjanta gardheer Soomaale waxay cabasho ka muujinaysaa mas'uuliyiinta iyo xildhibaanka beesha garjanta gardheer Soomaale oo ku guul dareystay difaacidda iyo xaq u helidda xuquuqaadka beesha xoojinta dhaqanka iyo horumarinta beesha garjanta soo celinta kalsoonida dadweynaha beesha waxay ku baaqaysaa in dhammaan xuquuqaadka ka maqan inuu asaasiga inay si gaar u heli doonto waxaa codsi u direynaa gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxaanu ku wargelinaynaa inuu si cadaalad iyo sinaan uusan ugu matalin xildhibaankeena Maxamed Cumar Cali Caananuug kadib markuu ka gaabiyay baahiyaha gaarka ah ee bulshada iyo tan deegaanba aan ku leenahay matalaadaha uusan si cadaalad iyo sinaan leh uusan noogu matalin gabagabadii waxaa rajaynaynaa inuu gudoomiyaha baarlamaanka federaalka Soomaaliya inuu codsiyadan iyo cabashada aan muujinayno inuu si degdeg ah uga soo jawaabo ma ahan markii koowaad markii labaad mar saddexaad oo ay kulanka isugu imaanay waxaan rajaynaynaa inuu gudoomiyaha baarlamaanka inuu si degdeg ah uga soo jawaabo ugu dambeyn waxaa madasha soo xiray ugaas Cabdullaahi ugaas Barow ugaas Cali soo ka hadlay magaca beesha garjanta gardheer Soomaale iyo taariikhda fog ee ku leeyihiin gudaha dalka ka shakinayo Caananuug xildhibaan nooma ahan madaxweynaha og cid kasta og baarlamaanka og shicibka og xildhibaan nooma ahan xafladan waxaa loo qabtay xafladan waxaan ugu talagalnay daahfur dhalinyaro isxilqaantay samaysay urur beesha u qaabilsan xisbiyada annaga odayaasha ana waa ku raacsannahay in ay hogaamintooda ay la soo baxaan waxaa jira marka hadda ninkii wax ka sheegidda badan waa xun tahay gobolka Banaadir keliya ma ahan gobollada Soomaaliyeed waaye beelweynta Soomaaliyeed waaye gobolka Banaadir keliya dadka daaci aan ka maqlaayay no ma ahan waa magacaas inta gobol uu dego gobollada Soomaaliyana dadka u badan waaye mid kale markaan xusuus yar idiin sheego gobolka Banaadir dad baa hadda isla haysiiya ma lahan dadka ayaga hasha lagu qara xamar maxay ku baxday magac xamar maxuu ku baxay hal la yiraahdo xamaro ayaa loogu qalay dadka aan ku soornaa lagu dhaweeyay dhulkana annaga iskale cid le kale ma jirto Ismaaciil Ibro Xasan Somali Cable Muqdisho u soo wareegoo la jaanqaad dunida casriga
oo ku maamulo abka Dahab Plus nolol maalmeedkaaga maaliyadeed. Hadda kala soo deg App Store iyo Play Store abka Dahab Plus.